madashani oo ahayd mid lagu shaacinayo shirkadda sida rasmiga ugu guuleysatay qandaraaska deyrka lagu wareejinayo xabsiga Mandheera. Munaasabadaasi waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka asluubta Somaliland, shirkadda ku guuleysatay qandaraaskaasi iyo waliba shirkadihii la tartamay. Nuux Maxamed Xuseen, gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Somaliland, ayaa si rasmi ah halkaasi uga shaaciyay shirkadda ku guuleysatay qandaraaska deyrka lagu wareejinayo xabsiga Mandheera. saaka waxaynu ku dhawaaqaynaa tartankii aynu furanay 25kii bishii lixaad ayaynu maanta ay bishu tahay 29kii bishii lixaad go'aankii kama dambaysta ahaa aynu ku dhawaaqaynaa. waxaa ku soo tartamay dhismaha gidaarka jeelka Mandheera 17 shirkadood, 3 shirkadood way habsaantay, 14 baa ku soo tartamay. 14kii shirkadood markii guddida qandaraasyada qaranku ay kala xuleen 4 shirkadood baa short list ka soo galay. company saaka wuxuu nasiibku siiyay oo gidaarka inay dhisaan ku guuleystay Surad Construction Company. waxaan kula dardaarmayaa shirkadda ku guuleysatay mashruuca inay dhismo tayo leh oo sida ku cad tartanka qiimaha ay soo qorteen in ay dhisi doonaan baan kula dardaarmayaa insha Allah taala. dhismaheeni gidaarka jeelka Mandheera banoo fadhinaa soo dhawaada xafiiska soo dhawaada. waxa idinkana indhihiina macallinkeedu ku yihiin in annana aanu baadhnay ayaanu tartanka ku salaynay annagoo ka duulayna mataqaanaa wixii noo ogmaday daacadnimo ugu duulayna annagoo ugu duulayna dhaartii iyo mataqaanaa wixii aan u maray inaan dadka cadaalad ugu garsooro qandaraasyada qaranka ayaanu halkan ku faalaynay ku falanqaynay. waxaan dhammaan shirkadaha inta ku 14 shirkadood badama wada heleen hal shirkadun baa ka helaysay. geesta kale iyaguna waxaa halkaasi ka mahad celiyay shirkadda ku guuleysatay qandaraaska dhismaha deyrka lagu wareejinayo xabsiga Mandheera. inaanu shaqo tayo leh oo runtii tayo leh oo idin qancisa annagana qancisa inaanu qaban doono insha Allah bidnaahi kariim. shirkadaha kalena waxaan rajaynaynaa insha Allah guul. waxa iyaguna halkaasi kelmado kooban ka jeediyay shirkadihii ka qayb galay tartanka qandaraaska dhismahaasi. sida wanaagsan cadaaladda loo waafajiyay qofkii de Ilaahay calafna ugu daray alla siiyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ugu taageersanahay. istaanagoo ah shirkadda Caalin waxaanu leenahay cadaaladda ummadda u horseedeen Allah idinku asturo waxaananu qaranka guud ahaan u rajaynaynaa guul. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta Somaliland, waxaanu dardaaran iyo talo u soo jeediyay shirkaddii ku guuleysatay qandaraaska dhismaha deyrka lagu wareejinayo xabsiga Mandheera. wax ummaddu leedahay inaad u qabato sida ugu habboon ee aad ugu talagashay ee qandaraas ku qoran annana sidaas umaano ugu yeedhi doonaa ciddii kontroolaysay. Axmed Nuur Ciise Maxamed, Bulsho TV, Hargeysa.